Axmed waa 14 sano jir muuqaalkiisa lagu suurayn karo 5 jir kaasi oo bilowgii noloshiisa la kowsaday xanuuno dhulyaal ka dhigay si loo daweeyo ayay hooyadii uga soo qaaday gaalkacayo waxayna keentay Muqdisho kadib dadaalo guul daraystay oo isugu jiray daawo dhaqameed iyo cilmiyeed. Axmed Cusmaan Cabdulle waa mid ka mid ah 10 caruur agoon ah kuwaas oo korintooda ay la daala dhacayso hooyo Samsam waxaase dhaqdhaqaaqa gabay inta badan xubnaha jirka wiilkeeda iyadoo uu daciifay codkiisu. waxaan ka imid magaalada Gaalkacyo cunugaana waxaan u soo dhigay takhtar oo xamara dhowr takhaatiirna waa geeyay takhaatiirtii waxay ii cadaysay inaan Soomaaliya waxba looga qaban karin. xanuunkan wuxuu ku bilowday asagoo bil jira bilba xanuunkan ku bilowday ka bacdi meel kale la geeyay wax aan lagu subin iyo wax loola hayr lama arko xataa korkiisa meel u fiyo mala waa la gubay intii la yiri xanuunkan gasar baa haya waa guban yahay dhabarkiisa dhan waa guban yahay waa qofka saasa waxa soo daba lagu dhajiyay intii la yiri gasar kaasoo qaba quraan waa saalay isbitaal Digfeer waa geeyay xamar markaan keenay banaadiraan geeyay takhaatiirtu waxay cadaysay wax laga qaban karo Soomaaliya inaysan jirin annaga gacanteeda xukuma jirto waxaan ula harayna male marka umada waxaan ka codsanayaa qof dhibaataysan baan ahay ilmahan waa agoon wixii la igu tari karo ama la igu caawin karo in la igu caawiyo si naxariis leh. xamar oo ay socdaal caafimaad ku yimaadeen waxay kaga nool yihiin qolkan jiingada ka samaysan mana haystaan hooy iyo cunto ku filan toona. wallahi xaaladan ku noolahay gurigayga waa u jeedaa halka salli iyo halka soorribayal iyo sararta wax kale noo weheliyo qolka xataa waa gali kartay wax kale noo weheliyo reero dariskaaba alaabta gurigaan yiri bal ilmahan ku hayso maadaama aan waxba gacanta ku hayn cunada xataa dariska ay keen oo ilmahaas aan siiyo markii xag rabi laga waayana hadda waaba laga waay markii aan helana muslimka wax siiyo dab uma shidan karo. dhakhaatiirtu waxay kula taliyeen inay dalka dibadiisa u qaado si looga dabiibo xanuunka daashaday balse duruufaha dhaqaale ee qoyskeeda ayaa u saamixi waayay inay Soomaaliya ka kaxayso. marka qof dhibaataysan baan ahay cunugan waa agoon ilmahan waa agoon anaa dhalay wax gacanteeda ku jirto maanta ilmihii aan takhtar ku geyn karana ma jirto. umada Soomaaliyeed hadday maqlahayaan dal iyo dibad ganacsatada madaxweynaha inta muslimiinta oo waxaysata waxaan ka codsanayaa in cunugaas wixii la igu tari karo agoonka ah in la igu taro wax gacanteeda ku jirtana male waxaan u awoodana male dhowr takhaatiir xataa waan mariyay takhaatiirtu waxay cadaysay inaan wax laga qaban karin. Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka.